Ku soo dhawaada xalqadii koowaad ee tababarka ku saabsan ka ilaalinta ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah ama BSEA. Magacaygu waa Xaliima. Aniguna waxaan ahay Saalim. Waxaan kuugu hambalyaynayaa inaad shaqo ka heshay hay'adda bini'aadannimo. Sababtaas daraaddeedna waxaa hadda lagaaga baahan yahay in aad fahamto oo aadna ixtiraamto habdhaqanka shaqaalaha bini'aadannimada. Waxaan naqtiimin doonaa qaar ka mid ah casharada ka ilaalinta ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah. Waxaan sidoo kale gacan kaa siin doonaa in aad fahamto mas'uuliyadahaaga ee la shaqaynta bulshada Soomaaliyeed. Xalqadan dhexdeeda waxaan kaga baaraandegi doonaa erayo iyo fikrado ku dhex jira PSEA. Waxaan sidoo kale bilaabi doonaa guudmar aan ku samayn doono 6 mabda' ee aasaasiga ah ee PSEA. Waxaan xalqadan ku soo gabagabayn doonaa xaalad la hal abuuray oo aad ka fikirto kadibna aad kala munaaqashooto saaxiibada aad wada shaqaysaan. Casharkeena aan ku bilowno sharaxaadda erayo aan marar badan maqalno marka dadka ka shaqeeya arrimaha bani'aadanimada ay ka hadlayaan BSEA. Waa muhiim in la caddeeyo fikradahan muhiimka ah si aan si wanaagsan ugu fahamno dadka nugul. Marka hore, waxaan leenahay jinsi oo ka soo horjeeda lab dhadig. Xaliima, ma ii sheegi kartaa waxa uu yahay farqiga u dhexeeya jinsi iyo lab dhadig? Jinsi waxaa lagu qeexaa sifooyinka jireed ee qofka, xubnaha iyo qaybaha jirka ee ay ku dhashaan iyo sida uu jirkooda u shaqeeyo. Lab dhadig waa sida bulshadeenna, qoysaskeena ay u qeexaan doorarka ama sifooyinka lab iyo dhadig. Haye, tusaale ma iga siin kartaa? Haweenku waxay dhalaan ilmo, laakiin se raggu ma dhalaan. Ma ii sheegi kartaa taasi in ay la xiriirto jinsi ama lab dhadig? Taasi waxay u muuqataa in ay la xiriirto jinsi. Taasi waa sax. Markii aan gabar yar ahaa, hooyadayda waxay ii sheegtay in aan noqdo qof dabeecad deggan leh oo fiican, balse waxay walaalkayga u sheegtay in uu noqdo qof adkaysi leh oo aan ooyin xitaa haddii uu geed ka soo dhaco. Miyay taasi u eg tahay in ay la xiriirto jinsi ama lab dhadig? Filashooyinka kala duwan ee uu reerku ka qabo wiilasha iyo gabdhaha, waxaan taasi u malaynaynaa in ay la xiriirto lab dhadig. Waa sida saxda ah. Haddaba, markaan ka hadlayno tacaddiga ku dhisan jinsiga, waxaa loola jeedaa waxyeelada dadka kale loo geysto iyada oo ay ugu wacan tahay lab ama dhadig cidda ay yihiin. Waa run, haweenka iyo gabdhuhu in ay la kulmaan tacaddiga ku dhisan jinsiga in ka badan inta ay la kulmaan ragga iyo wiilasha. Waa sax. In kasta oo tacaddiga ku dhisan jinsiga uu qaabab badan leeyahay oo ayna u dhacaan sababo badan daraaddood. Sababta asalka u ah waa sinaan la'aanta jinsiga. Tusaale waxaa ka mid ah tacaddiga reerka ka dhex dhaca. Ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka waa marka qof awood badan leh uu ku qanciyo qof ay awooddiisu yar tahay in uu ka qayb qaato hawlo galmo la xiriira. Qofka awoodda badan ayaa badanaaba ku laaluusha qofka awoodda yari waxa uu doonayo ama u baahan yahay. Dadka gudaha ku barakacay IDPs ayaa si gaar ah u nugul, waxaana loola beegsadaa ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka. Marka aanu ka hadlayno dadka awoodda badan leh ee xaaladda, waa shakhsiyaadka wax maamula sida shaqaalaha bani'aadanimada, dadka caawiya dadka kale ama saamaynta ku leh dhinacyada maciishada ama bedqabka. Xaliima, ma isiin kartaa tusaale ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah? Haddii shaqaalaha arrimaha gargaarka ka shaqeeya uu bixiyo raashin dheeri ah ama shaqo uu ku beddelanayo galmo, taasi waa ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka.
xadgudub galmo wuxuu dhacaa marka qof awood badan leh uu ku khasbo qof awooddiisu yar tahay in uu ka qayb qaato hawlo galmo la xiriira. Ka faa'iidaysi galmo iyo xadgudub galmo labaduba waa qaababka tacaddiga ku dhisan jinsiga. Ma ogtahay in ay jiraan 6 mabda' ee aasaasiga u ah ka ilaalinta ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah? Waxaan xalqadan ku dulmari doonaa mabda'a 1, 2 iyo 3. Mabda'a aasaasiga ah ee lambarka 1. Shaqaalaha bani'aadamnimada waxaa loo anshax marin karaa, xitaa shaqada looga cayrin karaa habdhaqanka aan la aqbali karin ee galmada la xiriira. Tani macnaheedu waa in aan la aqbali karin qofku in uu ku lug yeesho ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah, gaar ahaan shaqaalaha arrimaha gargaarka ka shaqeeya. Haddii aad xeerkan jabiso, waxaad ku waayi kartaa shaqadaada. Mabda'a aasaasiga ah ee lambarka 2. Shaqaalaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka looma oggola in ay xiriir galmo la yeeshaan qof kasta oo ay da'diisu ka yar tahay 18 sano, xitaa haddii ay sharci ka tahay dalkooda. Garasho la'aanta da'da dhabta ah ee qofka cudurdaar sax ah uma noqon karto. Taasi waa run. Xitaa haddii meesha aad ku nooshahay ay ka jiraan caadooyin kala duwan ama xeerar maxalli ah oo arrintan ku saabsan. Mabda'a aasaasiga ah ee lambarka 3. Shaqaalaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka looma oggola in ay galmo ku bixiyaan lacag, shaqo, alaabooyin ama adeegyo ay ku jiraan alaabooyinka iyo adeegyo loogu talagalay in lagu caawiyo dad u baahan. Waa in aysan adeegsan ballanqaadyada waxyaabahan si ay dadka kale uga dhaadhiciyaan in ay aqbalaan habdhaqan nooc kasta ah oo sharafta looga qaadayo ama suuragelinaya in lagula kaco ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka. Tani waxaa ka mid ah bixinta ama soo jeedinta lacag lagula galmoonayo dhilo ama cid jirkeeda ka ganacsata. Waa in aadan lacag ku bixin galmo qof ku khasbin inuu kula galmoodo iyada oo sabab u ah awoodda ama saamayn aad leedahay daraaddeed. Ama galmo waa in aadan ku beddelan kaalmo nooc kastaba ha noqotee. Maxay kula tahay? Aynu ka baaraandegno xaalad la hal abuuray oo soo bandhigaysa qaar ka mid ah fikradaha ilaa hadda aan ka wada hadalnay. Maxamed waa waardiye ka shaqeeya xerada. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu xerada ku dhex arkay Nasra oo ah haweeney 19 sano jir ah. Kadibna wuu la kulmay. Assalaamu calaykum. Walaashay. Wacalaykum salaam. Waxaan kugu arkay xerada. Hogaamiyaha qaybtan xerada waa qof aan si fiican u aqaano. Ma igu imaan kartaa goob badqab leh si aan xogaa shaah ah ugu cabno? Waan ka xumahay. Walaashii iga yar ayaan hayaa. Maad ka fiirsatid. Aniga qaybtan ayaan maalin kasta joogaa. Waxaan u malaynayaa in aad iga farxin karto. Nasra ma hubto sida loogu jawaabo waardiyaha. Waxaa la geliyey xaalad aad iyo aad u adag. Waardiyuhu wuxuu leeyahay awood sida haweeney dhalinyaro ah oo xerada ku jirta ahaana. Nasra waa qof nugul. Nasra waxaa qasban ah in ay dareento cadaadiska ama culayska in ay shaah la soo cabto waardiyaha iyada oo sabab u ah in uu garanayo hogaamiyaha iyo in uu awoodi karo in uu caawiyo iyada iyo qoyskeeda. Haddii ay maya dhahdo, waxay si joogto ah ugu arki doontaa meel u dhow halka ay ku nooshahay. Waxaana laga yaabaa in uu dhibaato u keeno. Inkasta oo uusan ku soo hadal qaadin absan galmo intii lagu guda jiray wada hadalkan, haddana Maxamed wuxuu Nasra dhigay xaalad aan habboonayn. Haddaba, adiga oo ka fikiraya qodobadii aan kaga soo wada hadalnay casharkii maanta, sideed u aragtaa xaaladan? Maxaa ku dhacaya Maxamed? Codsiga Maxamed waa mid aan la aqbali karin. Sida waardiyaha hay'ad bini'aadannimo ahaan, waa in uu xushmeeyaa xeerka habdhaqanka shaqaalaha bini'aadannimada.
nasra waa in ay arrintan ku soo wargelisaa shaqaalaha bini'aadannimada ee ay kalsoonida badan ku qabto. Shaqaalahaasi bini'aadannimada waa in uu la xiriiraa kuwa u qaabilsan arrimaha PSEA si loo bilaabo tallaabada saxda ah. aynu naqtiiminno qaar ka mid ah erayadii aan maanta barannay. Waxaan ka wada hadalnay farqiga ama kala duwanaanshaha u dhexeeya jinsi iyo lab dhadig. Waxaan si faahfaahsan uga hadalnay tacaddiga ku dhisan jinsiga iyo qaababka kala duwan ee uu leeyahay. Waxaan eegnay ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka. Waxaan sidoo kale dib u eegnay 3 ka mid ah 6 mabda' ee asaasiga ah ee PSEA oo ay tahay in aad raacdo haddii aad u shaqayso hay'ad ka shaqayso hawlaha bani'aadnimada gargaarka. Haddii aad doonayso in aad ogaato wax badan oo ku saabsan xuquuqahaaga iyo mas'uuliyadahaaga ee PSEA, la soco xalqadeenna tan xigta, ama waxaad kala hadli kartaa maamulahaaga ama cidda hay'addaada u qaabilsan arrimaha PSEA. Waad ku mahadsan tahay dhegaysigaaga iyo is arag dambe.